إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلمتي أفراد tobanka bisha Dhulxijja ugu horeeyaan ugu talagalnay kelmadan iyo laba kelmadood oo ka dambaysahay waxaan ku soo koobi doonaa inta ugu muhiimsan axkaamta udxiyada oo ah xoolaha la gowraco maalinka tobnaad, maadaama ay diyaargarow sii baahan tahay oo qofku xoolihii sii gato, siina diyaarsado, iskana sii eego, iska fiiriyo. kelmadeenna waxaan kusoo qaadan doonaa 3 ka mid ah axkaamta ugu muhiimsan udxiyada. waxaan kusoo qaadan doonaa oo axkaamtaas ka mid ah kow, xukunka udxiyadu ma waajib ah mise waa sunno. waxaan soo qaadan doonaa inaan udxiyada gowraco iyo inaan qiimaheeda sadaqaysto qiimaa fadli badan. waxaa kaloon kusoo qaadan doonaa waqtigeeda udxiyada la gowracaya, waqtiga gowracu goormuu bilaabanaya, goormuu dhammaanaya. masalada hore, xukunka udxiyadu sunna mu'akada weeye. inay mashruuc tahay waa ijmaac, way wanaagsan tahay in la sameeyo. intaa kadib xukunkeedu sida culammaduna u badan yihiin, adilada asaxdeen ay u badan tahay, xukunkeedu sunno wey. waana sunnooyinka waaweyn ee shicaarka iyo astaamaha shacairta islaamka lagu muujiya ka mid ah wey. saa darteed bay wanaagsan tahay qof kastoo kari karaay inuu ku dadaalo. nabigana alayhi salatu wasalaam waxaa ka sugan in uu isagu udxiyo gowracay, ayaa nabigeena ka sugan sala allahu alayh alih wasalam. bal saxaabada qaarkood waxay sheegeen in 10kii sane nabigu madiine uu joogay 10ka sanaba udxiyada gowrici jiray. sidaa uu nabigeenu sheegay alay slam ficil ahaan u sameeyey iyo dayashada guudeed hadyigii iyo sunnadii nabi ibraahim in lagu dayda la isfaray, waxay daliil u noqonayaan in xukunkani xukun wanaagsan oo cibaado iyo qurbo ah yahay, ilaahayna loogu dhowaanayo oo ah macnaha sunnada. sidaasaana loo kala dhaxlay. culamada qaar ba waxay qabaan inay waajib tahay. intaan garanayana qowl daciifa weeyo aan wax daliilo asaxay oo lahuba aan lahayn. ibnu xasm oo kaleetiya rag lamidihii waxay soo guurinayaan saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan lagu haynin ciday ka sugan tahay inay yidhaahdeen waa waajib. waa sida ibnu xasm hadalka u dhigay raximah allahu tacaala. mas'alada ku saabsan axaadiista ku soo aroortay, xadiidka Abu Hurayra laga warinayo ee odhanaya man wajaca sacatan falam yudaxi falaa yaqrabanna musallaana. qofkii awood leh ee gowrici kara, ee awooda, ee aan wax gowricin, yaanu nooga imanin meeshaan ku tukanaynaay. waa min qawli abi hurayra, xadiis marfuuca ma aha. riwaayada xadiidka marfuuca ka dhigaysana riwaaya daciifa wey.
أصح الروايتين عبد الله بن جعفر بن ربيعة من قول أبي هريرة كذلك. أما رواية القتباني وحفظه صدع في كتشر وخلق مرك قاركون ولا سو خلافه ابن وهب يرجل ميدان ابن وهب حكوري من قول أبي هريرة يهي ذكر الدور وزيد بن حباب يحيى بن شريح يحيى سعيد الحطاري أنا إنهم مرفوع هذه كوريين. وكان رواية جعفر بن ربيعة يعيد لنا بن جعفر ووافصا رواية ابن وهب عن القتباني وكراج حسن رواية مرفوعة صادته ومن قول أبي هريرة. حديث كمخنف ابن سليم راح قيس كستبع سند كي أضحية على قربانا أصحاب السنن كي يوريين وحديث ضعيف صوت عدة كورين يسا مخنف ابن سليم عامل أبو رمل اللي يراهداي وأنه مجهول ولا قرنين طريقة اللبان مدحو غيسان كربابا هانو ابن أبي المخارق بالكريم عن حبيب بن مخنف كورين إياه الكريم بن أبي المخارقنا ضعيف مناكير ورية حبيب بن مخنف نواب مجهول هذا عن أبيه مجري خلاف لما كجر صادرت لبداس waxay ugu xad cad yihiin adillada la oranayo waxay waajib tahay bay tusaysaa waxaan rabaa marka adilla sariix oo ku asaxday oo xukunka lagu waajibiyay intaan garanayo ma asaxin صادرت xukunkeedu waa sunna muakkada kaasi waa xukunka koobaad xukunka labaad fadliga udxiyadu نص كاره كأنصحي انت انقرنا يا مجر تلك عائشة أرانيا أجر كبادان أشيغي وانت سنئي كدولك كل بين إذا تسمال كل بعي عليها لما أنصحين ضعيفها وعندك أن ضمان حديث والحيادة اللي قورحي أجر قوان أو ترى قوان لأشيغي ساي انت انقرنا يا حوى كما أنصحين هذه السنة النبي قال له ديانيو يا شعارك يا هذا النبي سمين جري كل علين جري الله نولين أيو بعض السنة لماذا كينيس فضل قاره يأجر كأن الله شيء أو أنصحي انت أنقرنا يا مجر سيئ فضل أكد لنا يسوى حاوي هذه السنة تهي أضحية لقورعه haddii aan qiimihii aan waxyada ku gowrici lahaa masaakiin iyo dad baahan ku sadaqaysto ayamaa fadli badan aqoon iyo dad baahan iyo inaan ku sadaqaysto iyo inaan neef gowraco ayamaa fadli badan sida saxdaa neefka in la gowracaa fadli badan waayo udxiyadan gowraceeduna waa sunno wakti go-an leh in badanna nabigu sameeyey sala allahu alay wasalam sadaqada iyo masaakiintana wakti kastay furan tahay haddaad awoodana inaad labadaba samayso isma diidayso waa midda labaadee culimmada qaar maadaama ay dhaheen waa waajib khuruujan min alkhilaafi waxaa fiican inaad gowracdo marba haddii ay kaa baxayso oo qadarkeedii aad bixinayso si khilaafka baad uga baxdo khilaafka laga baxana qaacida fuqahadeena waxay tahay alkhuruuj min alkhilaafi mustaxab khilaafka in laga baxo sunno wanaagsan wey waana shacairta diinta iyo astaamaha waaweyne diintu lagu muujiye calaamadaha waaweyn asaynu soo sheegay inahaasoo dhani waxay rajaxayaan in gowracu ka fadli badan yahay in aad qadarkeedii oo lacaga sadaqaysato sidaasana culimmadu in badan kutubtooda ku sheegaan raxmatullahi calayhim jamiican masalada ugu dambaysa kelmaddeenani waa waktiga gowraca waktiga gowraca xoolaha la gowracaya dhammaad iyo bilow dhammaadku waa maalinka 13 qoraxda dhicitaankeeda
maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo bisha dilxija 13 waana maalinka u dambaysee mina laga soo baxo ee ilaah yidhi faman tacajala fii yawmayni falaa isma calayhi waman ta'akhara falaa isma calayhi. marka gowracu waa 4 maalmood, maalinka 10aad, 11aad, 12aad iyo 13aad. marka 13ka qoraxdu hadday dhacdo waktigii waa dhammaaday. laakiin su-aashu waxay tahay dhammaadkii garanaya bilowgu waa goorma? qadar waa la isku raacsan yahay, qadarna muran baa ka taagan. qadar waa la isku raacsan yahay waa inay maalinka 10aad ee ciidda ah qoraxdu soo baxdo, waktigii nahyiga ee salaadana dhaafto oo qayda rumxin xilligii salaad ciid la tukan kari lahaa waa inay gaadho. xilligii salaada ciidda la tukan lahaa waa inay gaadho. intaa qadarka intaan garanayo waa la isku raacsan yahay. waxa soo haray waxaa weeye salaada ka hor ma la gowrici karaa iyadoo qoraxdii soo dheeraatay, mise waa qasab salaada gadaasheed in lala sugo? halka khilaafka ku jira waxaan rabaa intaan mas'alada xukunkeeda aadan ka jawaabin in waxay u baahan tahay 2 xaaladood aad u kala qaado. xaaladda koobaadi waa haddii aan la tukanayninba, meel la tukanayaba aadan joogin, adiguna aadan tukanaynin. qof dumar oo raba inay ciidaysato ay udxiyo gowracdo, iyadana xilliga cudurdaarka iyo fasaxa ku jirta meeshan aan lagaba tukanaynin. qofku haddii uu joogo meel aan laga tukanaynin, qayda rumxin markii ay soo kor noqoto hadyigii udxiyadiisa waa gowrici karaa, waayo salaad uu la sugaba ma jirto. qofka jooga meel jamaacadii iyo ciiddii la tukanayo, ciidda ka hor waktigii oo soo galay ma gowrici karaa? mid khilaafka ma jiro. sida wanaagsan inuu bacda salaad gowraca inay tahay intaan garanayo khilaafka looga baxayo khilaafka ma jiro. laakiin ma ansaxaysaa ma banaantay haddii la yidhaahdo masala khilaafiya wa cinda jamhuuri ahli ilcilmi gowracu wuu ansaxayaa haddii waktigii salaada ciidda la gaaro. gowracuna sidii uu kii meelaan la tukanaynin uga ansaxay buka meesha la tukanayana isku wakti ugu soo galaa. daahirka xadiidka qaarkoodna wuxuu tilmaamayaa in salaada ciidda kadib la gowraco. saa darteed waxaan ku boorinayaa dadka inay salaada markay soo tukadaan, dadka meel laga tukanayo jooga, in salaada marka ay soo tukadaan ay gowracaan iyaga adaaxidoodii iyo cidday wakiil uga hayaan adaaxida. intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa kelmadeennii afraad ee silsiladda ahna qaybtii koobaad ee axkaamta udxiyada aan kusoo koobaynay ilaa kelmadda shanaad. أنا سيدنا إنه قيد كل أحكامته ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت